بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن كسر هذا السولا ترافل فلوج waxaan barnaamijkan xiisaha leh ku eegi doonaa marka aad ka dhoofaysid garoonka caalamiga ah ee Istanbul International Airport oo 45 kilomitir u jira isla caasimadda ganacsiga ee magaalada Istanbul runtii way ka duwan tahay markaad ka soo degaysid waxa aad u dhib badan marka laga dhoofayo Istanbul International Airport magaalada waxaad u baahan tahay ugu yaraan 2 ilaa 3 saac ka hor inaad ka soo tagto hotelkaaga ama meesha degan tahay sababtoo ah magaaladan waxay caan ku tahay zaxmaha ay caan ku tahay waxa kale oo ay caan ku tahay marka airportka la yimaado waqti dheer inay ku qaadato diyaaradaha way kala duwan yihiin diyaaradaha qaarkood 1 saac iyo bar ka hor gate-ka way xiraan diyaaradaha qaarkood ilaa 45 daqiiqo marka waxay ku xiran tahay meesha aad u dhoofaysid tusaale ahaan haddii aad u dhoofaysid North America qaasatan Mareykanka iyo Canada waxaad u baahan tahay 3 saac ka hor airportka inaad timaadid 3 saac ka horna ka soo baxid marka waa 6 saacadood oo aad u safraysid markii ugu horeeyay aad soo gashid waxaa la eegaa check in information diyaaradaada dhanka checking-ka laga samaynayo mar walba waxaad iska ilaalisaa boorsooyinkiina culayskooda waayo lacag aad u fara badan ayaa laga qaadaya halkan ayaad ka eegaysaa waxaad arkaysaa flight-ka meesha laga gelayo numberka EFG ayaad aragtaa Turkish Airways diyaaradda aad raacaysid numberkeeda halkan ayaa laga eegaa waxaan kaloo idin xasuusinayaa marka ugu horeeya ee aad ka soo gashid afaafka weyn airportka security iyo waxaa jirta luggage control ayaa jirta meel security-ga lagu eego oo wax walba laga eegayo tusaale ahaan boorsadaada ayaa la eegayaa waxaa kaloo la eegayaa wax walba ku jira laptop ka sarreeya lagu leeyahay waa dhankaas aad u jeedaa marka security-ga lama ogola waxa la lama ogola dhanka in film laga qaado laakiin ishaan ku xadaya kowga albaabka ugu horeeya laga soo galay waa kaas kadibna gate-kaaga ayaad eegaysaa ama F ama H ama G meeshaan iminka isla ayaanu eegaynaa kadibna halkan ayaa saf u galaysaa inta badan dadka sida caadada u dhoofa mar walba waxaan yiraahdaa 24 saac ka hor check-in online ku samee fudeed ayuu ku noqonayaa waxaad soo daabacaysaa ama appka wallet-ka aad ku ridaysaa dhanka iyo iPhone-ka ama Android haddii aad wadatid Samsung waad soo galaysaa boorsooyinka diibaysaa saf ma galaysid horaad ka soconaysaa marka waxaa xusuus badan mar walba in aadan stress isgelin markaad safraysid safka waqti hore aad soo gashid kadibna diyaaraddaadii meesha aad ku sugi lahayd aad gashid xasuusta ugu horeysa waxay tahay luggage extra ha soo qaadin hadaad soo qaadid lacag waxaad bixinaysaa extra ayaad bixinaysaa marka diyaaradda hadda ka horeyaan kaga sheekay diyaaradda aada Soomaaliya iyo Djibouti waqti fiican ayaa la soo degaa si aanu kaaga tagin isla markaana dhanka transfer iyo transit-ka aad u soo martid airportkan hore sidaan kugu sheegay wuxuu ku fadhiyaa baaxad aad u weyn oo ilaa iyo waxaad arkaysaa dhowr iyo 10 kilomitir square ah in uu ku fadhiyo marka dhanka labaad ee naga soo horjeeda idan lama ogola in la duubo waa dhankii baasaboorkii marka haddii aad aadaysid Europe iyo North America baaritaanku aad ayuu u fara badan yahay waxaad maraysaa 5 meelood marka marnaba isku halayn in aad tiraahdid baasaboor la fujiyay ama bug ayaan ku baxaya dhankaas ayaa dhanka baasaboorada ah marka lamana ogola marka waan soo weydiiyay booliisku waxay yiraahdeen baasaboorka iyo security-ga iska ilaali qaasatan xilli dagaal ayaa lagu jiraa marka lama ogola ay yiraahdeen meelaha qaarkood in wax laga duubo ama wax laga sameeyo marka waxaan isku dayayaa in aan sharciga walba ilaaliyo marka iska ilaaliya meeshaan marnaba laga yeeli maayo in aad maaragtay baasaboor buga ku soo martid qaasatan waxaan arkay waddanka Ingiriiska iyo marka loo dhoofayo Canada iyo Mareykanka loo dhoofayo 5 meelood ayaa la marayaa marka baasaboorkaaga rasmiga aad u lahayd ayaa shaki laga gelinaya iska badbaaya mid oo la soo fujiyay ama qof kale uu leeyahay ama luqadii waddanka aadan aqoon marka airportka baaxadiisa aad ayay u weyn tahay aad ayaana loo qurxiyay sida awgeed space aad u weyn ayaad heli kartaa masaajidda ayaa ku yaala maqaayada ayaa ku yaala cafe ayaa ku yaala marka baasaboorkana saf maba jiraba hal ishaan ku xadaya haddii aad ila eegtaan wax saf la yiraahdo bayraatee ma jiro aad ayuu u banaan yahay waa dhankaas oo aad u jeedaan departureskan halkan ayaa la yimaada halkan ayaa laga baxaa marka waxaa kaloo idin sheegay qofka haddii uu yahay curyaan waa la sii dalbadaa diyaaradda aad raacaysid ayaa tikitka xilliga la goosanaya ayaa laga dalbadaa dhanka iyo curyaamiinta si aadan maaragtay airportkaadan ugu daalin qofka caadiga ah ayaanu ku socon karin iska badaaye qof maaragtay curyaan ah ama aan socon karin ama waayeel ah marka
mar alla markii aad dhaaftid dhanka iyo baasaboorada aad dhaaftid oo halkan midig haddaan intusay mar labaad aan tusayo waxaa kaa hor imaanaya security-gii ugu dambeysay oo ah in boorsada lagaa baaro waa dhankaas waad u jeedaa baasaboorada marka la maro international departureka baasaboorada la maro waxaa la sii marayaa kadib dhanka iyo security-ga ugu dambeeya markii kaas la dhaafo haddii North America iyo Europe aad u socotid security kale ayaad sii maraysa oo dadkii markii koowaad ku soo baaray iyo mar labaad waxaad ku arkaysaa meeshaas iyagoo ku leh baasaboorkii stickerka lagaa saaray halkaas waa la eegaya isla qofkii inuu yahay waayo waxay diidayaan dhanka iyo transitka in baasaboor la isugu bedelo security-ga aad ayaa loo adkeeyay sababtay u adkeeyna waxay tahay iyadoo mar walba laga baqayo in diyaaradahan ganaax weyn ku dhac diyaaradda Turkish adduunka oo dhan ayay tagtaa marka macluumaad ahaan information ahaan meelahan haddii la yimaado informationka international airportka luqadda aad xulaysaa haddii aan kan aan xulo waxa ii soo baxaya waxa aan doonayo oo dhan main menu places mobile application transportation city tour wax walba saacadda luqadda aad rabtid way kugu soo baxaysaa kan halkaad ayaa ka raacaysaa marka informationka aad ayuu u buuxaa tusaale ahaan haddii halkan aad eegtid dhanka iyo departure levelka designka airportka waxaad ku arkaysaa macluumaadka dhammaan qofka travelerka ah ama safarka ku jira uu ka helayo marka haddii xataa mardhoofe aad tahay inkastoo meeshu ay aad u baaxad weyn tahay haddana waxba dhib male waxaa kaa caawinaya luqadda waxaa kaa caawinaya fallaaraha meesha ku taagan xataa haddaadan luqadda aqoonin fallaaraha ayaa kaa caawinaya haddii aad member ka tahay inta badan waxaan idhahdaa asxaabta mar walba aad raaxaysan Turkish Airways waxaad member ka noqdaan miles and miles club waxaad ku helaysaa upgrade oo business class lagu siiyo waxaad ku helaysaa meesha fast track meel la yiraahdo oo dadka safaadan galin waxaad ku helaysaa meesha Turkish Airways cuntada laga cuno oo bilaashka ayaad helaysaa mar walba waa la xusha waayo points ayaad helaysaa tigidhada ku helaysaa wax walbana way ka caawinayaan marka vlogga Solar Portal mar walba waxaad ku samaysaan subscribe ku sameeyay sababtoo ah meelaha safarada ah meelaha xiisaha leh ee travel vlog ayaan soo gudbinayaa waayo dad badan oo Soomaali ah ayaa ka safra meeshan diyaaradaha ugu badan ee adduunkana meeshan ayay ka baxaan saad la socotaan oo qof walba uu raaco meel walba qaaradaha adduunka Australia waxay tagaan North America South America Africa Asia meel aysan tagin adduunyada haba yaraatee ma jirto sidaa awgeed ayaa departureka mar walba waa ka dhib badan yahay arrivalka waqtigeeda ayaad haysata laakiin dad badan ayaa diyaarada ka raacaan waxaa kaloo xusuus mudan waan doonayaa asxaabta duusha mar walba ama ku cusub inay tahay adduunka oo dhan waxaa laga isticmaalaa standard la yiraahdo 24 hours ayaa laga isticmaalaa waan ku celinay 24 hours marka diyaarad baxda ma jirto 5 saac subaxdii 6 saac wax la yiraahdo ma jiraan adduunka waxay saacadaha ku socdaan in ay tahay 1800 1900 20 21 22 marka dad badan ayaa arka la yiraahdo talaadada waxaad baxaysaa 1 o'clock 1 o'clock lama yiraahdo tikidada jiraysa waxa la yiraahdo 1300 1 o'clock wax la yiraahdo ma jiraan 1 o'clock waa habeenkii hal jeer ayaa jirta 1 o'clock waana habeenkii 1300 ayaa la yiraahdo duhurkii tusaale ahaan haddii qofku uu duulayo 9 saac baad duulaysaa lagu yiraahdo 9 saac hal 9 saac ayaa jirta waa 9 in the morning 9 in the morning haday noqoto kan kale wuxuu noqonayaa marka 1500 ayuu noqonayaa marka meeshan Turkish Airways business lounge-ka aan sheegayay haddii aad heshid miles and miles oo aniga aan haysto halkan ayaan geli karaa halkan ayaan fadhiisan karaa cuntaan ka cuni karaa bilaasha mararka qaar upgrade ay ku sameynayaan waayo miles mar hore aan ka samaysay isla markaana aan member aan ka ahay halkan ayaan gelayaa hadda gacmo furan iyo jawi degan ayaa lagu soo dhaweynayaa kadibna waxa la leeyahay soo dhawow soo gal cabitaan baa lagu siinayaa cunta lagu siinayaa ilaa waqtiga loogu talagalay uu ka dhamaado markaan vlogga dhameeyo insha Allah waan ku soo laabanaya isla markaana waxaad ka arkaysaa departure-kaaga kaalumi maayo halkan ayaad ku arkaysaa laakiin adoon haysan miles and miles waan ku buuxin halkan laguma ogolo marka waxa kale oo xusuus mudan diyaaradda Soomaaliya ka imaata inta badan way soo daahdaa haddii ay xamar ay ku soo daahdo ama Djibouti ay ku soo daahdo waxa dhaca in lagu geynayo hotel inta badan waxay yiraahdaan viisaha gooso anaga waxaan kuu soo sameeynaynaa refund $30 bixi anaga kuu soo celinay lacagta lagama yeelo waxa la yiraahdaa anigu lacag ma haysto dadka inta saasay sameeyeen inta badan anigu lacag ma haysto sida awgeed waxaan doonayaa in idinka aad ii jirtaan ayaa la yiraahdaa hadday ku jiraan waa soo gudbaysaa banaankaad soo baxaysaa waxaa jira hotel ayaa ku yaala banaanka hotelkaasoo baabuur lagu soo qaadayo lagu geynayo gawaarida markii lagu soo qaado basaska cuntaad ka cunaysaan habeenkii waa seexanaysaan saacadda idinka iyaga ay soo kicinaya kadibna waxaad soo aadaysaan airportka 2 saac hore ayaa lagu keenaya saas ayaa lagu baxaya marka waxba ha isdhibin haddii diyaaraddu ay ka tagto stress ha isgelinin waa caadi mar walba diyaaraddu dadku ay ka tagtaa halkan waayo xamar ayay ku soo daahdaa ama Djibouti ay ku soo daahdaa marka taasna waa information aan doonayay asxaabta in aan la qaybsado si ay Solar
travel vlog ay uga ogaadaan qaabka loo safro. Dadka intooda badan information-kan uma baahna, laakiin dad baa xoogaa ka faa'iido oo ila soo xiriiro oo yidhi Abdinaasir aad baad u mahadsan tahay, akhbaaraadka aana siisay waxyaabo badan baan ka faa'iido, wayna fiican tahay. Marka waxaan idhaahdaa taxiga maanta aan ku soo baxay oo aan kaga soo baxay bartamaha magaalada waxaan ku imid 170 liira ayaan ku imid lacagta, ama lacag u dhiganta ilaa iyo 28 ilaa 30 ayaan maaragtay aan ku soo qaatay. Marka mar walba xasuuso airport waxba ha ka bedelanin, banaan ka bedelo, farmashiye ayaa ku yaala, dukaamo ayaa ku yaala, maqaayado ayaa ku yaala, meelo kala duwan. Laakiin lacag bedelka mar walba waxaan idhaahdaa banaanka ayaa la tagaa, banaan ka soo bedelo, meeshaad ka qaadanaysaa. Marka qaybtan departure-ka international airport-ka magaalada Istanbul ee caasimadda ganacsiga waddankan Turkey, halkan ayaan kaga baxayaa. Marka waxaan idin leeyahay wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhankii iyo business class lounge Turkish Airways ayaan ku laabanayaa. Marka kaarka miles and miles ka iloobina, soo samaysta, online ka samaysta, app ka samaysta, isla markaana waxaad ku helaysaa mar walba dhuftan 700 800 dhibcood ay kugu dirayaan, meeshaad ka isticmaalaysaa adoo relaxi ah oo raaxad ku dhoofaysaa. Marka waa in salaamaya mar kale, wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.